waxaan si gaar ah u sii salaamayaa oo u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland nooc kasta yihiin hadday militariga yihiin hadday asluubta yihiin hadday ciidamada booliiska yihiin ee sida hagar la'aanta afartaa sane dagaalkaasi ama dhibkaasi halkaa ka jiray nala joogay ee u dabar adeegay ee reerahoodii iyo naftoodiiba ku dayacmeen ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daran leenahay iyagana waxaan filayaa maanta waxaan filayaa inaan nasan doontaan haddii ilaahay ka dhigo in yaroo nala sii daadaada mooye inta kale aanu fasaxi doono haddii ilaahay ka dhigo insha allah waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa oo kale hay-adaha dawliga ah ama maxalliga ah ee nala joogay dee qaar badani way iska tageen oo waa baqeen oo waa hargeysa ma soo dhaafin halkaasi wax kasoo tuur jira hadday maaragtay ay halkaasi waxay nooga soo tuurtuurayeen waxaa nala joogay oo aan maalin qura naga dhex bixin waxaa nala joogay aan maalin keliya naga dhex bixin hay-adda la yidhaha taakulo cumar jaamac faarax ninkaasi ammaan gaara buu naga mudan yahay abaal weyn baa loo hayaa ninkastuu deegaanka iyo halwaasaylaakuuli calaa waajib wuxuu ahaa maalin maalmaha ka mida annagoo sidan oo kale u fadhino halkaa aanu fadhino ayaa boqor cismaan igula kaftamo wuxuu yidhi war maanta boonkii idinku jabayoo cumar jaamac baa iska galay isagoo soconaya iska galay meesha la yidhaha dhaban maamac waxaan ku yidhi way soo dhaweynayaan awr bay u qalayaan waad ogaan doontaa in yar dabadeed buu la hadlay wuxuu yidhi war cumarow nimsaa baabuurtiisoo lagaama qaadin wuxuu yidhi wallaahi awr baa ii bislaanaysa marka waxaan uga socdaa bahashu saa uma sii weyneyne in yaroo maaragtay baa nagu dhex jirtay intaasina dhammaantay insha allah waxaan usoo noqonayaa qodobada ah halkaa laga yeedhiyey dhammaantood sidaa ay yihiin baanu u qaadannay dee dadkaa maanta halkaa jooga hadday wasiirada yihiin hadday salaadiin tahay hadday maayarada tahay waxay nagula joogaan waa marti sharaf iyo inay markhaati ka noqdaan nabadda aanu xidhnay markaa waa noogu ducaynaysaan nabaddaasina waxaan filayaa maanta nin kasta oo maanta reerka ahi wuxuu aaminsan yahay taasi inay tahay nabaddii u dambaysay ee halkaa ku xidhanta waxaasina aanay dib uga soo noqon doonin haddii ilaahay ka dhigo ilaahay idinkii waxaad nagu taageeraysaan oo insha allahu aad noogu ducaynaysaan nabadda aanu xidhnay beelaha walaalaha ee deegaanka ah nabaddaasi dee halka hoose ay ka soo xidhanto labadii raasi ay ka bilaabantay baanu sida la sheegay ay ka bilaabantay wixii kale waxna kala gaadheen arrintoodu way noo taallaa gogoshaanu dhignana sidii bay u taallaa waxaanu leenahay weliba oo ku celcelinaynaa walaalayaal sida aanu taa u dhammaynayno kuwa kalena u dhammaynaynaa insha allah cid kasta oo wax gaadheen oo halkaa ku gaadheenna siday tahay baynu u dhammaynaynaa insha allah intaasaan aan kaga baxayaa waxaan ku yar noqonayaa dee maanta waxaa yaalla annagu nabaddii baanu qaadannay waana naga dabo waa ku dagaalamaynaa naftaanu u huraynaa culayska meesha yaalla dad fara badan baa baxay wixii kaleba tuuray oo ka tagnay laakiin dhiigga bini aadanka lama tuuri karo dee ninkii iskale hunbaa saamixi kara walaalaha noo yimi ee ergooyinkaa si gaara garxaji iyo habar jeclo iyo dawladda iyo ciddii kale gacan ka geysanaysa inay dhiiggaa wixii ay naga qaadi karaan khasaarihii meeshaa ka dhacay naf iyo maal wixii ay qaadi karaan inay maanta naga qaadaan haddii ilaahay ka dhigo dhinaca kale dawladda waxaan aad ugu sii adkaynayaa kaabayaashii aasaasiga ahaa sida waxbarashadii muxuu ahaaye caafimaadkii biyihii magaaladu waa taasoo waarata saasay u baabaasan tahay afartaa sannadood dagaal ku socday hadda jiifkii wuxuu yidhi way xidhan tahay magaaladii dadkii lahaa way ka guureen meelo kale u guureentay magaaladii ha lagu soo noqdo oo ha la magaaleeyo wixii nala qaban karaya maanta gacan baanu u baahnay gacan ha nala siiyo